qofka insaanka ah maxaa ku keena inuu ooyo? qofka insaanka ah maxaa ciriiri geliya? maxaa qofkan ciilo, maxaa ilanta ka keeno? qofka weyn wuxuu u ooyaa arrin xanuunjisay, arrin taabatay. badanaana arrimaha qofka uu u ooyo waxay tahay ooyinta dhabta ah. qofka xanuunka jismigiisa taabtay ma ka imaato ooyinta, qofka xanuunka markuu qalbigiisa taabto ayay imaataa ooyinta. wixii la rababa ha lagu magacaabo, ama stress ha la dhaho, ama wax kale magac kale ha loo yeelo. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيجة لما أنت ملك السؤال جوكتان هبين وناكسن رمضان كوا مالنتيسي أفرات إلهي سبحانه وتعالى هنو فضذي أنت لمن inta aan ma aragtay soonnay oo dukanay oo quraan akhrinay ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal hanaga aqbalo, allahumma amiin. videoga saan arkay waxaa waaye gabar waaye oo ooynayso, yacni qof ay dhibaatay ma dhahaysa, laakiin codkeedana ma maqlin, laakiin dadka reactionka ka bixinaya waxay sheegayeen in ma aragtay qofkaas stress uu ku furan yahay oo kale. subxaan allah. walaalayaal mawduucan maanta aan ka hadlaayo aad iyo aad uu muhiim u yahay, qof walba uu muhiim u yahay, aniga iyo adiga iyo qof walba uu soo gaaray insha allah. qofka insaanka ah maxaa ku keena inuu ooyo? qofka insaanka ah maxaa ciriiri geliya? maxaa qofkan ciilo, maxaa ilanta ka keeno? qofka weyn wuxuu u ooyaa arrin xanuunjisay, arrin taabatay. badanaana arrimaha qofka uu u ooyo waxay tahay ooyinta dhabta ah. qofka xanuunka jismigiisa taabtay ma ka imaato ooyinta, qofka xanuunka markuu qalbigiisa taabto ayay imaataa ooyinta. wixii la rababa ha lagu magacaabo, ama stress ha la dhaho, ama wax kale magac kale ha loo yeelo. qofka markii uu dhibaato dareemayo waa ciishoonaya, laakiin markuu banaanka ula soo baxo qofka dhibaatadaas waa maray ka tanbadisay qofkaas, yacni xajmigeedii dhibaatada ay soo dhaaftay. waxaan rabaa maanta inaan isdul taago walaalayaal, maanta inaan ka hadlo sababaha noo keenayo inaan ma aragtay dhibaatoono, ciiloono, murgoono, iyo sababaha uga bixi lahayn wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iga garadsiiyey aniga. waxaan hubaa qof walbo anaga naga mid ah inay haysato arrin dhibaataysay, laakiin waxaa kale ah arrimaha labay kala yihiin. arrinta ruuxiga ah waa arrin xanuun badan oo dhib badan, yacni meeshay doontaa kaaga imaato, ama il ha kugu dhacdo, ama qofka ha la sixro, ama maxaa la dhahaa xasad ha ku dhaco, ama yacni culayska adduunka intuu ka batay inuu yacni uu aboodi waayo kalaba ha noqotee. insha allah waxaan rajaynaynaa xal inaan helno. horta xalka waa yaalaa, mar walbaba waa jiraa, keliya waxaa loo baahan yahay in lais xasuusiyo oo maaragtay laysku tilmaamo oo la yiraahdo war xalka dhinacaasuu jiraaye bal daawada dhinacaas laga raadiyo. awalan walaalayaal, horta waxaan rabnaa inaan isla ogaano ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa inuusan dulminaynin. annaga waxaana haysto na cusleeyey oo dhibaatooyinka noo keenayna inay tahay dembigii annaga aan galnay, oo anaga aan nafteena ka galnay, oo aan dulminay nafteena. taaniyan waxaan rabnaa inaan ogaano walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaan caabudno cibaadadeena waxba uma kordhinayso, mulkigiisana waxba ma ku darayso. haddaan caabudi weynana annaga oo dhan jamiican insi waljinni haddii la caabudi waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ma ka nusqaaminayso ilaahay ma aragtay weyninkiisa iyo boqortooyadiisa. lidaalika yaydan u tahay cibaadada daacat allah, yaydan u tahay annaga. ilaahay in la caasiyay u daran tahay annaga. marka waxaan rabnaa inaan ogaano qofka markaa aragtid ama naftaada markaa aragtid in dhibaato ay kugu dhacday oo dhibaato aad dareemaysid oo aa isleedahay culays ha ku haysto, ama xanuun ha ahaado, ama culays ha ahaado, ama waxun ha ahaado,
أنا waxaa isleeyahay cudur qofka ibn aadamka ku dhaca waxaa u xuna isleeyahay caajiska uu dareemayo gudihiisa ka dareemayo in ma aragtay xarig inta loo qaatay xibin walba ama xidid walba ama yani xibin walba jirkiisa ka nuuxsanayso xarig inta lagu qabtay dhulka lagu sii musmaaray camal qofka yani caajiska noocaas ah oo aadan waxba qabsan karin waa rabtaa wixii inaad qabatid maskaxdaada way daashay waxna ma qaban kartid dadaa waxay ku leeyihiin salaadii way idhibaysaa waa sax quraanku wuu idhibayaa waa sax gurigii waxa way hagaagsala ahay aniga dhibaatadaas haysato waxbarashadii wallahi gabdho yaryar ila soo xiriir oo ilahay habar yar waxbarashadii waa kari la'aanahay waalidkeena waxbarashay noo soo direen anagina tacbaanaanahay qofkii ibn aadamka goormay waxa soo dhan ku dhacaysaa walaaliyaal waxay ku dhacaysaa markay asiibto ay asiibto ama ay asiibto yani dhibaato yani ku dhacda qofkaas qalbigiisii maskaxdiisii mashquuliyay sidaas darteed xibnihii iyo unugyada jirka oo dhan waxay ku mashquulsan yihiin dhibkan imaada sida loo xalin lahaay maanta dhan marka maskaxda meel kale ka shaqeynaysaa meel kale u shaqeynaysaa nafis uma hayso cuntada ama guriga hagaajiskiisa ama waxbarashadii wax akhriskii waxaas oo dhan laakiin waxaas oo dhan maxaa keeno meeshay doonaan ha ka imaadaan siday doonaan ha u imaadaan xajmigay doonaan ha la ekaadaan maxaa keeni kara ma taqaana waxaas oo dhan waxaas waxa keenay waa dunuubteena dambiyada anaga aan galayno ayay waxaas oo dhan ku imaanayaan walaaliyaal ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ma dulmiyo adoomadiisa ma dulmiyo markii maxaa la dhahay ii sheeg wallaahi waxyaabo waxaa jiro oo aad iyo aad looga calool xumaado maxaan uga calool xumaadaa aniga aamin ahaan maxaan uga calool xumaadaa maxaan ugu yani murug ay qabataa marka aan arko gabdhaheena Soomaaliyeed marxaladda maanta ay ku jiraan gabadha maanta igu kaliftay videogaas inaan soo duubo waa gabar baraha bulshada isticmaasho waaye hadaa dareemaysid ii sheeg maxaa la dhahayay xanuun iyo walwal iyo dhibaato horta ugu horeen naftaada dib ugu noqo adiga dib iskugu noqo waxa dib isugu noqonay qaladaadka gashay xasuuso wax yaraan xasuusanahay ilaahayna wax badan waa cafiyaa wax yar un baa la noo qabtaa ma badna intaas laakiin anaga waa ilowsanahay naftaada dib ugu noqo waxa naftaada dib ugu noqonay dhaqankaaga bedelaysaa dunuubta faraha kula jirtida bedelaysaa walaaliyaal ma waxay idin la tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cirka iyo dhulka inuu ciyaar u abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuuna dhahay hala dukado ciyaar ma idin la tahay inuuna dhahay yaa cibaadii fattaquun inuuna dhahay addoomadaydu iga cabsada aniga ciyaar ma idin la tahay ma waxay idin la tahay ama ina la tahay annaga in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sidaas nooga tagaayo أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أنجا إلهي سبحانه وتعالى عيارنا ما أبورين أنما خلقناكم عبثا معيار النو أبورين ومية waxaan nahay adoomo ilaahay sida uu naga rabo hadaan noqon weynana waa tan anaga nagu soo noqonayso on la cawaadayna maalin walbo on la xanuunsanahay on hawsha guriga xataa la qabsan la'anahay oo horumar u gaari la'anahay meeqa barogaraama maalinta maskaxda ku soo dhaca adiga wax badan maxaad u qabsan laadahay mis weydiisay ilaahay hadaan ka careysiino wax noo hagaagay male ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri shaydaanka wuxuu idin yahay cadow فاتخذوه عدوا إذن كان واحد كدغتان عدو لكن أنا حبيبان كدغني سيداس درتيدا واي wax la dhibaatooneen ibkana haysto wax kala ma aha annaga shaydaanka isku banbixinay banaanka u istaagnay waa ikana kaalay shaydaan annaga wali ka dhiganay see wali looga dhigtay amarkiisa raacnay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay qofkii aniga hanuunkayga raaco oo amarkayga raaco wax cabsi ah iyo walwal ah dushiisa ma ahaanin walwalka cabsida walaaca argagaxa wax walboon haysto waxay ku ahaatay dunuubteena ku ahaatay
walaalayaal cajaladan waxaan rajaynaa inaad sheergaraysaan ilaahay wejigiisa aad u sheergaraysaan oo dadka aad isleedihiin way qusaysaa aad gaarsiisaan maxaa yeelay anigu waxaan rajaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku xureeyo hadalkaygaas dad badan oo ilaahay mugdiyada uga saaro oo ilaahay ku soo hanuuniyo oo ilaahay amarkiisa ay qaataan ilaahay wuxuu yiri haddaad wanaagsanaataan idinkaa wanaagsanaadi naftiinay u fiican tahay haddii aad xumaataanna naftiinu baad dhibaataynaysaan walaalayaal mugdiyada aan ku jirno aan ka baxno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أذيك يا كول والجرينا وشيطان شيطان يا كاعلن كر إلهي سبحانه وتعالى إلهي سدوك أجعلنا وإن أمر كسر عذاب إلهي وإن نوه جان سنانا إلهي سبحانه وتعالى وإن أمر كسيلنا إلهي سبحانه وتعالى وإن ذكري سما أركت ولا لي القاذنا وحاب بلن وإلهي بلن قاضي وهبال هدي أنو جهيسنو إلهي دين عيسى ففروا إلى الله ولا ليال dhibaatadana haysata inaan ka baxayno maanta oo dhan ama anaga oo dhan waxaan dareemaynaa dhibaato fara badan aan dareemaynaa haba ugu xumaadee ciriiriga laabeed haba ugu xumaadee cabsidii walwalka waayahan dambe soo batay maxay u soo badatay dambiga batay kullama dambiga uu batana jirooyinkii fasahaad way badanayaan inna badsha rabbika la shadiid ilaahay qabashadiisa way adag tahay ilaahay qabashadiisa looma adkaysan karo والله العظيم وحا إيمانيسو مالنا دهيس يا ليتني حدانا نولان لهين أما أن سقيرنا ما بسقر دي مالها أما أنا دنبي كان قليل لهين هدي لإيش يجي لها هدي لإيوانين لها نبكان ما أنتي هستيقو مدعي لهين آخيرا ما أمال يسا مش ساس كل هيسيد آخيرا انتان لقارين أدونكا كل هيسا ها مبال وايتاس مركا آد حنون ستيد وحنون يبادن كوكو دعان وإل أي كوكو دعادو oo cuduro kugu dhacaan oo aafo kugu dhacaan dadka maanta ku sacbinayo dadka maanta adiga taageeraha ku dadka maanta adiga naarta kugu wacaayo wallahi alazim hadhow way ku caynayaan marka xanuunsatid waxay ku leeyihiin waa dambigi ay geysatay xataa kuma soo duceynayaan way ku caynayaan waxay leeyihiin hablaaye saan waaye am hebel waa kan dunuubti uu geysto la xanuunsan yahay daraadna waa lagu sacbinayo oo kuma dhahaynin ilaahay ka cabso walaashaydii is astur ilaahay ka baq ilaahay ha ku xifdiyo allah ha ku dhowr laguma dhahaynin walaashayda ama walaalkayga qof walbo luqada aan ku hadlayo fahmayo ilaahay dartiis ayaan maanta hadalkan u leeyahay waxaan ku leeyahay farxad heshide xaaladaha mugdiga iyo dhibaatada aad ku jirtid aad ka baxdide ilaahay xaqiis u soo laabo ilaahay hadaan run sheegno ونو نحرسنا هدادنا ما أنت حنون سنين أديقا بريوا كوكو سو مقايا حنون كاس محايا لي واحد وقاتا انتا بدن بيقى فراها كل جرتد قاسة قبلها نلاقي هي اسروح يسين ود ما انتو ناس ولا قيسين او محالة ده هاي عوردين والله العظيم وهلاك أن لقصوا نقنين حالة دها لقو جرو ولا صوبنا يا ما انت تالي يران إذن الشيقة كلي عان واتين كلي عان وها نقطين لكن إلهي سيئات كينا حسناتها إذن كوكو بدليه ولا عليها القصة والنقضة عني ماذا رادين يسان صمي إذن هلين وبدلا بالرئيس السوء حجاب صلاة هذا الدكو وهاسا يقولون كإسكدا حمانتا سميني سونا كو بدل إلهين وكوهي لنا وكوهنوننا حدا ياكو جعل انت حمانتا جعلاكو جعل لكن هلو انت حمانتا جعل انت وناقا جعل الله سبحانه وتعالى وكو جعلانا كل ذات كانوا ويكو جعلانا يعني عاني هذا عاني ما يكوسي للي يا درجة هذا الدرجة يكوسي لليسا إلهين وكون حريصنا يا وران إسقى صوبحنا انتي قورتهاي مروا البوحان إذن لا يا أنيقا عبادة وحي قروح بدنتهاي انت عافي ما تقبته دنبقيان لا اسكو بدينين ولا ليال وإذن جعلهاي تلدان وتلا ولا التنمو تلدان وتلا
walaaltinimo gabar walaashiino idin jecelo idinka damqanayso xaggeed idinkaga imaatay. alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub. ilaahay alaa hooyaay bidikri illaah, ilaahay xuskiisa waa midka soo ma aha midka ay ku degto quluubta. qalbigan wuxuu jiraa noloshiisa iyo nafaqadiisa iyo fitamiinaadkiisa cirkuu jiraa. ilaahay subxaanahu qalbigan wuu banaan yahay, buuxiya aan ku buuxino dikriga ilaahay iyo daacada ilaahay. maanta maalinka fiican oo arrinkaas aa samayn laheedna ma jiro, maxaa yeelay bisha barakeysan ramadaana lagu jiraa. shayaadiinta adiga yacni ku dhibayso oo kugu xoojinaysa dhibaatada inaad samaysidna waa lagaa xirxiray, ilaa kuwa yaryar ma ahani. kuwaasna insha allah waa ka adkaanayna, xataa kuwa weyna ka adkaanayna haddii ilaahay subxaanahu watacaala usoo jeesano. ilaahay wuxuu yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan. aniga addoomadayda horta ilaaha naga dhiga cibaadallahi khaalisiin, allah naga dhigo. ilaahay addoommadiisa khaaska saalixiinta allah naga dhigo. walaalahayga waxaan u baahannahay tawba inaan la imaano, ka faa'iidaysana bishaan barakaysan. bisha ramadaan inta lagu guda jiro jadwalkii nolosha iyo wax walba way kuu toosayaan. man taraka shay-an lillaah cawadahu allahu khayran fi dunya walaakhira. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka tag xumaanta, uga tag liwajhi illaahi, ma qasaaraysid oo wax ka khayr badanaa helaysaa. iskaga tag dadkan kuu sacbo hoorinayo iyo dadkan xumaanta kuugu yeerayo. qofna maxaa la dhahayo walaal inaad naar gashid ha ku ixtiraamin, qofna walaal ha ku ixtiraamin sharaftaada inay dhunto. gabdhow ilaahay waana sharfay, sharaftii ilaahayna sharfay ha naga qaadin oo ha iska qaadina walaalayaal. is astura, is dhowra. ninka kuu sacbinayo ma ogola beri inuu xaas kaa dhigto. waxaase aad aan ula yaabaa ragga u ogolaanayo gabdhahooda maanta oo dhan inay meelahan ka niikiyaan, bal ee ayagaaba la soo dheelayaba. wiilalow damiir yeesha, wax isku fala, ilaahay ka cabsada, xaasaskiina asturta, war xaasaskiina ilaashada. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara. war idinkaa mas-uulka ee xaasaskiina ilaashada, khayrkii wanaagga u sheega. gabdhow idinkana ilaahay ka baqa. wallaahi ninkuuma noqdo ninka xumaanta kuugu yeerayo, ee iska daaya walaalayaal. cajalada way ila dheeraatay, ma ka dhargaayi inaan kelimadan wanaagsan wallaahi alcadiim markaan sheeko kasoo sheekeynayo waxaan ka jeclahay aniga marka aan kelimada waanada ah aan ma aragtay ka hadlayo. maxaa yeelay waxay ka imaataa qalbigaygay ka imaataa. taas waan jeclahay ma ka dhargaayi maanta oo dhan inaan wado. haddaanan ka baqanayni in la idhibsado cajalada dhirirkeeda waa wadi laha ilaa aan ka daalo. laakiin cajalada dheer lama jeclo, haddayba dheeraatayba. walaalahayga waan idin jeclahay. ramadaan mubaarak. ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo. ee ilaahay xaggiis aan usoo laabano, dhibaatada si aan uga baxno, nafafkeena aan ku laabano. annagaa dulmiga samaynay, ilaahayna ma dulminin. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وحول بو أنصحينا من الله كأهادين. haddii aan wax qaldayna naftaydii shaydaanay ka ahaadeen. waa idin jeclahay. ilaahay ramadaanka inta ka dhimana khayri barwaaqaha noogu dhameeyo. ilaahay subxaanahu watacaala dembigeenana ha dhaafo. waa idin salaama. habeen wanaagsan insha allah. aniga habeenay ii tahay. mar kale ramadaan mubaarak. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.